shaqadan qabto waxaan u qabtaa way waxaan aaminsanahay inay tahay shaqo iyo xirfad aniga ay badbaadisay shakhsiyan anigu noloshaydii hore waxaan i haystay oo aan la noolaa caqabado iyo xuduudo iyo duruufo runtii xanibaya oo khasbayay inaan si taban u fikiro natiijooyinka noloshaan ka helayaana ay noqdaan kuwa aanan ku qanacsanayn runtii ma yahayn nololaan doortay inaan ku sii jiro wiil yar oo da'yar oo waddan burburay ku dhashay oo ku koraya wax badan oo mustaqbal ifayo waxaan u arkayaa aanan jirin dadka uu la nool yahay ee ka agdhow yihiin dad baasaysiga sharaysiga aad moodo inay u samaysan yihiin oo waxyaabaha suurtagalahaanshaha ah ee macquula ee uu qofka yar ee da'yari ku riyoonayo ee uu iska malaawaalayo sheeganayo mar walba idhaaha waxaa suuragal maaha oo ku caburiyay inaanu aaminin oo raba inay aaminaan in waxaas aanay suuragal ahayn runtii dee jawiye iyo duruufo iyo xaalado aanan jeclayn ayaan runtii arkay as a young boy marar badan marka noloshaydii ku noqdo nolosha intaan ka soo arkay ku noqdo xilliyo badan waan kufay marar badan waan guuldaraystay marar badan runtii sawirkan iska haysto iyo sawirkan dunida ka haystaa waxa aan ku aanan sheegi karin aad u foolxun aad u liita aan rajo badan ku ladnayn markaan xaaladaha nooca ku jiray waxba ay badbaadshay xirfado iyo hab fikir iyo dhaqanno iyo go'aano iyo waxyaabahan sameeyay baa bedelay xaaladahaygii runtii ismay bedelin jawiyadii iyo duruufihii weli way jiraan laakiin aniga isbedelay markaan anigu isbedelayna waan ka dhex koray macnaha anaa ka weynaaday laakiin iyagu weli halkii bay iska yaalaan marka xirfadihii iyo techniqueskii iyo hab fikirkii iyo go'aanadii iyo shaqadii aan qabtay ee iga dhex saartay jawiyada iyo duruufaha ay xanibayay ee ii saartay jawi aan si xor u fikiro go'aanadaydu shaqeeyaan noloshayda maaraysto xorriyad maaliyadeed helo aan saamayn noloshayda shakhsiga noloshii qoyskayga noloshii dhalinyarada ku yeesho si xor u safro adiyada meelo muhiima oo looga baahan yahay shaqadayda iyo platforms looga baahan yahay hawshaydu aan fadhiisto oo qaybahayga ka qaato runtii dee shaqa waxbaan qabtay I did something waxaan ugu horeeyay inaan saxo qaabkan sidaan adduunka u arkay adduun aragayga inaan saxa ugu horeysay inaan lambar laba inaan anigu iska shaqeeyo oon isku hawshoodo oon isku mashquulo oo aan ka saarin niyadayda iyo maskaxdayda iyo sidaan adduunka ku arkayo muraayadaan adduunka ku eegayo wax kasta oo jajaban wax kasta oo ciriiri iyo suququl iyo gaagaabni iyo hooseyn iyo quus gelin kara tii baa sababtay inaan anigu noqdo qofkii yaraayan ku riyoon jiray inaan noqdo tii baa iga qaaday wadannada ugu faqiirsan adduunyada oo i geysay wadannada ugu qanisan adduunyada tii baa sababtay in aan anigu financially aan cabursanaado oo ii geysay inaan anigu maaliyad ahaan xor ahaado dad kale oo qoyskayga ugu horeeyaana saamayn ku yeesho qaabkay u nool yihiin iyo sida yihiin tii baa sababtay anu inaan ka baxo qof yaroo caadiya inaan ahaado oon noqdo qof aan caadi ahayn oo nolosha dadka saamayn kara marka si kooban aan u soo koobo shaqada waxaan u qabtaa shaqadan qabtoo ah inaan tababaro iyo barnaamijyo tafkiiriya oo qaab fikirka iyo qaab nololeedka dhalinyarada bedeli kara oo life coachingka iyo dhiirigelinta iyo motivational speaking anigu shakhsiyan waa shaqadan qabto waxay igu kalifaa because waa techniques iyo xirfado iyo barnaamijyo iyo qaabab aniga noloshayda saameeyay dhinaca kale u jeediyey dreamskii iyo riyooyinkii anoo yaraan ku riyoon jireen sawiran jirayna qaybo laxaadle oo ka mid inay rumoobaan sababay marka waan aaminsanahay anaa ku dhaqmay anaa ku caanamaalay anaa ku reeyey haddana waxaan u diyaarahay oo 4 sano ugu dambeysay baan ku hawlanaa in techniques aan gaarsiiyo dhalinyarta kale kumanaanka ee deegaanada Soomaalida ku nool sidaydoo kale ku riyoonay inay noqdaan waxyaabo wanaagsan iyo dad adduunyada iyo dadkooda faa'iido u leh anna marka
tii baan rabaa hadda inaan ku caawiyo dhalinyarada inay access u helaan oo ay isticmaali karaan. maalintaad bilowday inaad riyooto ayay isla maalintaa bilaabmayaan inay caqabado yimaadaan. ma tirin karo runtii kumana soo koobi karo 2 midhidh iyo 3 midhidh wax la mid ah caqabadihii iga soo maray halkaan taaganahay inaan iskeeno, caqabadihii iyo duruufihii iyo kadeedadii iga soo gaadhay halkaan taaganahay inaan imaado. runtii kuma koobi karo muddo kooban, laakiin dhowr idinkaba laga yaabo in idin haystaan oo anigana soo maray baan jeclaa inaan idin la wadaago. dhowrka waxa ka mid ah runtii in cid ku aaminsan oo waxaanaad ka hadlayso iyo waxaanaad rabtee dalbatay aaminsani maba jirinba. xitaa qaybo ka mid ah qoyskayga aan la dhashay aan ka dhashay ma aaminsaneen runtii camalka iyo shaqadan aan qabanayo. caqabad weyn bay igu ahayd runtii inay dadku mar walba si taban iyo dhinac negative oo xun ka eegaan waxaan aan ku riyoonayn doonayay, sidoo kalena si constant si joogto ah in lagugu sheego inaanad waxba qaban karin. caqabadaha ugu waaweyn waxa ka mid ah in marka qof igu yiraahdo markaan qof ugu warramo waxaan rabay iyo meeshaan ku socday iyo waxyaabaha aan doonay inaan qabto, hal qof baa igu oranayay nin waa suuragal, 10 qofna waxay igu oranayeen waad kadeedaysaa maxaa ku kadeeday. marka caqabadahan ka soo tallaabsadeen ka kore waxa ka mid ah in dadku ay mar walba ahaayeen caqabad iyo dhagax hor yaala waxaan rabo. caqabadaha kale waxa ka mid ah aniga caqabad isku ahaaba. intii aan anu ku jiray horumarkii nafeed wali wii socdaay ina shaqooyinkan aan qabanayo guula caqiibo la ka gaaro. waxay igu hortaagnaa waxa ka mid ahaa aniga laftayda, because aniga cod baa iga soo dhex bixi jiray oo naftaydu isla hadal nafeed baa jira. mar walba anaa isku sheegi jiray Maxamed, come on, caadi iska dhig, si fiican u fikir, be realistic. waxaad ka timid magaalo cirifka ku taala, waxaad ka dhalatay qoys iska typical Somali family, qoys ka dhexdhexaad oo lacag buuran lahayn. waxaad tahay wiil yar oo aan waxbarashooyin adduunyada laga soo qaato aan ehel ahayn. waxaad tahay wiil aan aabihii ahayn wealthy iyo qani. come on, caadi iska dhig, sidaad u noqon kartaa qof yar oo adduunyada meeshuu doonayo u safra. maydeebo waa suuragal, dadka qaar waa suuragal, laakiin adigu dee anigaa isku sheegi jiray waxa. marka inaan anigu naftayda ka soo tallaabsada caqabad kale oo ka weyn bay ahayd iyaduna. marka mid igu dhex jira iyo mid dibaddeeda ahayd, a critic inside and a critic outside. mid beenaalo aan igu dhex jiro oo ii sheegay inaan waxba suuragal ahayn iyo mid hor joogo oo ii sheegay. marka labadaas caqabadii ugu waaweynaa. caqabadaha kale waxa ka mid ah waxaan la imiday meesha rabay inaan ka shaqeeyo oo ahaa wax runtii aan waaqican la noolahay hore looga arag ama dadkeenu aanay aqoon iyo aragti ka haysan midna. mar walba qaar baa odhan jiray runtii waxaan maba ahaba wax xaqiiqo adduunyada taal. marka duruuftii iyo waaqican ku noolaana in waxaan la imid aanu ahayn mid ka shaqaynaya oo aan aragti laga haysana, oo aan introduce gareeyo soo shaabixiyo oo aan ku dhaqmo oon la imaado baahiyo barnaamijyo noocaas oo kale waxay wax bulshadu hore iga aqbali weeyday. marka hore inay bulshadu ay aqbali weeyaan caqabad kale ahayd. caqabadaha kale waaweyn waxa ka mid ah runtii settingkii iyo nidaamkan waxaad rabto iyo waxaad ku riyoonayso sida uu shaqayn lahayn iyo ciddii kala shaqayn lahayd iyo qaabkii baan isaga laftigiisa jirin. marka waxaas oo dhan waxaan caqabado wayna helayaan qof walba, way jiraan haddadan qof walba raba inuu soo maro dariiqaan marayo ku ka fiicanba way hor yaalaan. waxay ahaan caqabado yaryar oo ku ugu koobnaayo ugu yaryaraaye aan soo arkaya. kuwa ka waaweyn baa jira oo runtii ay critics waaweyn adesho oo si publicly ummadda ijmaaca horteeda lagugu himilad gareeyo oo waxaanad ka hadlayso loo bahdilo iyo adigaba masaajida laga hadal qaado la yiraahdo waxaan wadaa waxaan jirin oo saliyo raatoona lahayn. in waalidkaaga laftigiisa laydinka hor keeno oo waalidkaaga si kale loo fahansiyo waxaad qabanayso. marka caqabaduhu ma yareen runtii, waa qaar yar oo ku dhifdhifta ahaa ee ka mid ahaa wixii aan soo dhex maray waxaan sheegaya. laakiin waxaasi may qeexayn oo may sharaxayn xaqiiqada Maxamed Cumar iyo wuxuu ku riyoonayo. mar walba aniga ahayd ka definitionkii xaqiiqada saxda iyo qeexda saxda bixinaya anu ahaa. aniga isku dayay inaan define gareeyo waxaan rabay, laakiin waxaa soo dhan imay define gareeyeen. waase waxaynu qof soo dhex maray taa waana soo maraysaa. I'm telling you ma jiro qof ka boodiya oo soo wada maraysaa. marka laakiin alxamdulillah
I'm proud inaan soo dhex maray waxa wax lagu farxo inaan soo dhex maray iyaga la'aantood ma noqdeen halkan waxaan ahay halkan joogana ma joogsadeen waa mas'alo runtii adag in a sense because waa isku wada waqti waa laga 24 saacadood qof walba haystaa laakiin 24 saacadood sida qaabka looga shaqaysiiyo ayaa lagu kala duwan yahay natiijada dadku haystaan ay ku kala duwan tahay aniga runtii ma sii badna laakiin siraha yareen isticmaalo waxa kamid ah maalin kasta oo timaada markaan tooso saacada ugu horeysa waxaan la qaataa naftayda iyo Ilaahay waxaan isku dayaa in Ilaahay aniga xiriirkayga aan update gareeyo oo aan hufo kadib anigu xogaayro khalwa galo oo aan darso halkay waxay socdaan maxay iga khaldan maxay saxan maxay qorshaa maxay iga qabyaa maxay iga qabsoomay kadib aan journalkayga soo saarto oo aan qorto waxyaabaha maalinta aan ku hawlgelinayay inaan qabtaan rabo marka saacada ugu horeysa aan isla qaata 24 saacadood maalinta 3 umaan u kala qaybsadaa waa inaan kow anigu isla qaato laba inaan dadka siiyo saddex iyo inaan mustaqbalkayga sidiiskoogii sii geliyo meel because fiilkan aan ku jiro ama meeshan aan hadda qaybtan nolosha aan hadda ku jiro waxaan rabaa inaan noqdo dadka la janto ee dunida oo dhan ugu khabiirsan marka laga hadlayo fiilkan ku jiro marka daa kamis waxa u baahan tahay input iyo dadaal iyo maalgashi badan marka every single day waxaan isku dayaa inaan akhriyo 40 page ama ugu yaraan minimum 30 page intaanan seexan ka hor every single day that means every single week waxaan isku dayaa inuu ii dhamaado hal book every single month na inay ii dhamaato minimum 2 books marka taasina waqti bay runtii iga qaataa inaan wax ka darso oo wax ka barto fiilkan aan ku jiro oo daba galo baxsi badan ku sameeyo updateski ugu dambeeyay daba galo oo aan buugta ugu wanaagsan ee latest updateski laga qoray eego inaan dadka fiilkan meel sare ka gaadhay iyaga laftigooda darso oo duruustooda barto wax badan bay ka qaadataa marka waqtiga badankiisa waxaan galiyaa inaan anigu invest gareeyo oo waqti isa siiyo haday noqoto xagga aqoonta iyo garashada haday noqoto xagga kartida iyo competence iyo maskaxda iyo ogaalkayga inaan dhiso haday noqoto ruuxaaniyaadkayga cibaadadeeda iyo alla ku xidhankayga iyo haday noqoto waqti aan la qaato naftayda iyo qoyskayga iyo dadkayga marka timekaygu saas u yar qaybsan yahay isma salihi you are perfect waxaan isleeyahay timekaaga wax badan baa ka dhiman oo u baahan inaad adjust garayso ka shaqayso ana hope inaan dhawaanahan ka guuleysto waqtigayga inuu noqdo sidaan rabo runtii fariinteeda kooban jecelahay inaan wadaagaa waxa weeye oo aniguna arkay inay nolosheedu wax weyn ka bedeshay qof aan wanaagsanayn oo maskaxdiisu saxnayn oo hab fikirkiisu saxnayn oo hab dhaqankiisa iyo adduun araggiisu una saxnayn ma noqonayo qof wax saxan oo wanaagsan hela marka si aad u wanaagsanaato wanaag laftigiisa aad u noqo wanaag waa adiga ka dhex bilaabmo waa inaan nafteena baranaa inaan ka nadiifino waxyaaba ibn aadamka sadeeya ee wasakheeya ibn aadamtinimada quruxda badan ee ilaahay iyo uumiyuhu jecel yihiin waa inaan wax kasta oo sifooyinka liita insaanka hoos u xajiya ee qurmiya ee qarmuuneeya ee wasakheeya ee insaan liita oo foolxun ka dhiga oo dhan nafteena ka nadiifina that's the only way aan ku gaari karno wanaagaan rabno ataskiya inaan nafteena ka maydhno wax kasto xun oo kasta in sidaan u fikirayno mindsetkeena aan ka saarno fikradaha iyo falsafadaha xadidaya ee aragtiyaha liita ee isquursiga iyo hoos isku eegida iyo shakiga iyo baqdinta iyo saluugu ka mid yahay sidoo kale waa inaan nafaheena ka dhowrnaa inay ka agdhawaato dadka xunxun ee sifooyinka liita leh because waxa la yiraahdaa shanta qof ee aad adigu raacdo oo baad tahay you are the 5 people you go with marka anu the only thing an aad ka idinku dhiirigelinayo aan arkay inay isbedel degdeg ah insaanka noloshiisa ku samayn kartaa wax weeyaan inuu insaanku ogaado oo uu ka warqabo oo uu hubiyo waxa gala maskaxdiisa naftiisa what gets into your mind waxa maskaxdaada galaya waa wax aad u muhiim ah kaasa marka dhaajis garayso maskaxdaadu dhaqankaaga noqonay marka
let's focus aan diiradda saarno siday maskaxdayna u qaabaysan tahay adduun araggeedu waa sidee naftayda iyo ahaanshahayguna ma ka maran yihiin sifooyinka liita ee insaanka xajiya. asalaamu calaykum. Audio Jungle.